kusoo dhawo Fan Academy. Haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Waad mahadsan tahay. Inta aynan hore u gelin barnaamijkeena, haddii aad doonaysid inaad ku barato luqadda Englishka si online ah, fadlan booqo website-keena fanacademy.com. sidoo kale igala soo xiriir ciwaanada hoos ku xusan. Waad mahadsan tahay mar kale. English for Journalism Part 4. darsigan waxaan ku baranaynaa Englishka lagu talagalay saxaafadda. ujeedada darsiga waa inaanu baranaa Englishka loo adeegsado ama ay isticmaalaan saxaafadda ku hadasho luqadda Englishka. Government forces carry out anti-rebel operation in the district. More details are coming from a series of operations over the last few hours by the government forces in the district in Middle Region. The planned operation was conducted in several locations in the outskirts of the district. Government forces, ciidamada dowladda, carry out waxay qaadeen ama ay fuliyeen anti-rebel operation, howlgallo ka dhan ah kooxaha mucaaradka in ku sugan the district degmada. More details are coming from a series of operations. More details faahfaahinad area are coming from ayaa ka imaanayo a series of operations, howlgallo taxana ama isku daba xigay over the last few hours ee dhacayay saacadihii ugu dambeeyey by the government forces ay sameynayeen ciidamada dowladda in ku sugan the district degmada in ku taalo Middle Region gobolka dhexe. The planned operation was conducted. The planned operation howlgalkan qorsheysan was conducted waxaa laga fuliyey in several locations dhowr goobood ama dhowr meel in ku taalo the outskirts duleedka of the district ee degmada. Government forces carry out ciidamada dowladda waxay fuliyeen anti-rebel operation, howlgal ka dhan ah kooxaha mucaaradka in ka sameeyan the district degmada. More details are coming from a series of operations. Faahfaahinad area ayaa ka imaanayo howlgallo taxana ah over the last few hours by the government forces ay sameynayeen saacadihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda in ku sugan the district degmada in ku taalo Middle Region gobolka dhexe. The planned operations was conducted in several locations in the outskirts of the district. The planned operation howlgalka qorsheysan was conducted waxaa laga fuliyey in several locations dhowr goobood in ku yaalo the outskirts branka ama duleedka of the district ee degmada. The purpose of this operation was to flush out the militants from small pockets around the town. There's no comment yet from the government officials on the operation. Notably, the new offensive operation comes days after the president announced a plan to remove the rebels from the region. The purpose of this operation, ujeedada howlgalkan, was ayaa ahaa the flush out in laga saaro the militants kooxaha mucaaradka from a small pockets meelo yaryar ay kaga hareen around the town magaalada agaarkeeda. There's no comment yet from government officials. Wax faallo ah oo ka yimid ama ka soo baxay saraakiisha dowladda ma jiro oon ku saabsan the operation howlgalka. Notably, the new offensive comes days after the president announced a plan to remove the rebels from the region. Notably, gaar ahaan the new offensive weerarkan ama hujuumkan cusub comes wuxuu imaanayaa days after maalmo kadib the president madaxweynaha announced uu iclaamiyey a plan qorsho to remove lagu saarayo the rebels mucaaradka looga saarayo from the region gobolka. The purpose of this operation was to flush out the militants from small pockets around the town. There's no comment yet from the government officials on the operation. Notably,
The new offensive operation comes days after the president announced a plan to remove the rebels from the region. The purpose of this operation, ujeedada howlgalkan, was ayaa ahaa the flush out in laga saaro the militants kooxaha mucaaradka from a small pockets meelo yaryar ay kaga hareen around the town magaalada agaarkeeda. There's no comment yet from government officials. Wax faalo ah oo ka yimid ama ka soo baxay saraakiisha dowladda ma jiro oon ku saabsan the operation howlgalka. Notably, gaar ahaan, the new offensive comes days after and weerarka ama hujuumka cusub wuxuu imaanayaa maalmo kadib the president madaxweynaha announced uu cilaamiyey a plan qorsho to remove the rebels looga saarayo kooxaha mucaaradka from the region gobolka